فرحad aad iyo aad u weyn maadaama aan la wadaagayna bulshada Soomaaliyeed ku biirista ururka caalamiga ah oo isbitaalka Royal uu ka mid noqday xubin International Hospital Federation ururkan oo ah urur mideeya isbitaalada adduunka oo idil IHF waa urur caalami ah oo la aasaasay sanadkii 1929 xaruntiisuna ay ku taalo Geneva Switzerland waxaana ku midoobay in ka badan 100 wadan oo isbitaalo iyo hay'adaha caalami ah oo kala duwan iyo isbitaalo ilaa 30,000 oo isbitaal ka badan xubinnimada ururkan waxay isbitaalka Royal uga dhigan tahay inuu la jaan qaado heerarka caalamiga ah ee loo baahan yahay in loo daryeelo bukaanada tayada adeeg ee loo baahan yahay iyo badbaadada bukaanka waxayna sidoo kale noo furaysaa in xubinnimadan aan helnay tababaro caalami ah xiriiro iskaashi caalami ah oo aan la yeelano isbitaalada adduunka sidoo kalena cilmiga baarisyada adduunka la sameeyo ayaan ka mid noqon doonaa bulshada Soomaaliyeed waxay ka faa'iidi doonaan inay helaan adeeg tayo sare leh ammaan leh la isku haleyn karo laguna kalsoonaan karo waxayna sidoo kale yareynaysaa bukaanada u aadi jiray dibadda maadaama isbitaalka Royal uu isku dayayo inuu hagaajiyo nidaamka tayo ee adduunka loogu talagalay bukaanada waxayna naga filan karaan inaan siino nidaam adeeg hufan marka aan xubinnimadan ay si buuxda loogu dhameystirmato shaqaale si joogto ah loo tababarayo iyo daryeel ku saleysan tayada adeegga bulshada badbaadada iyo ixtiraamka bukaanka waxaan qorsheynaynaa inaan ballaarino adeegyadeena caafimaad ee aan bulshada gaarsiino hirgelino teknoolajiyada casriga ee adduunku hirgeliyay sidoo kalena xoojino adeegyada tayadeeda iyo sidoo kale ballaarinta inaan iskaashi caalami ah la yeelano Royal Hospital Muqdisho waxay mar walba u taagan tahay daryeel caafimaad oo tayo leh ammaan la isku haleyn karo laguna kalsoonaan karo waxaana bulshada Soomaaliyeed uga mahadcelinaynaa kalsoonida ay nagu qabaan oo ay na siiyeen